السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن marka dadka kaliyuhu ay fadhiistaan ama xaaladda kidney failure-ka ay galaan ee labada kaliyood mid ka mid shaqada ay ka baxdo. inta badan kalida bidixda ayaa shaqada ka baxda. waxaa jira marka kaliyahaasi ay fadhiistaan ama mid ka mid shaqada ay ka baxdo laba xal ayaa lagu dadaalaa in qofka noloshiisa lagu sii ilaaliyo. xalka koobaad waa dialysis in loo sameeyo oo kaliyaha qofka la maydho, iyo transplant in lagu sameeyo oo qofka kalidii shaqada ka baxday laga saaro oo kali kale loo geliyo. labada xal ka midi waa temporary solution, waa xal si temporary ama si markaas aan permanent ahayn loo sameynayo, waa dialysis marka lagu sameynayo kaliyaha la maydhayo. taasi ma aha inta badan dhakhaatiirtu uma tixgeliyaan mid markaa permanent, laakiin takalida qof kale inta laga soo saaro qofka loo geliyo ayaa xilliyada qaar waxay noqotaa mid markaa permanent solution, xal qofku uu markaa kalidiisii fadhiisatay uu beddelkeeda ku helayo. laakiin runtii arrinta la yaabkeeda leh ee loo baahan yahay muuqaalkan inaynu ku fahanno ayaa waxay tahay xalka kalida fadhiisatay marka qofka kali kale loo gelinayo ee xalka abadan abidka loo isticmaalayo ama xalka kama dambeynta loo isticmaalayo ayaa iyada qudheedu waxa ay leedahay khatar kale oo aad u weyn. inta badan dadka kaliyaha loo geliyaa way dhintaan. sababtay u dhintaana waa shantan shay. kalidaa la geliyey waxa ku timaada 5 dhibaato oo kalidii hore fadhiisiyay baa ku yimaada. marka inta badan ma sii shaqayso. qofkuna marka kali cusub loo geliyo waa uu dhintaa muddo kadib. sanad waxbuu sii noolaadaa, qofku inta badan waa uu dhintaa. dhakhaatiirtu markaa waxay u soo qaataan 5 sababood inay arrintani ay keento. arrinta koobaad, kalidii hore waxa fadhiisiyay qofka inuu wali qabo. tusaale ahaan xanuunka diabetiska inuu qabo. xanuunka macaanka ee diabetiska kaliyaha wuu fadhiisiyaa. xanuunkii inuu qabo oo kalida cusub ee loo geliyay dee xanuunka diabetiska uu fadhiisinayo. arrinta labaad, xanuunka hypertension-ka inuu qabay oo kalidii hore uu fadhiisiyey. kalida cusub ee loo geliyeyna xanuunka hypertension-ka fadhiisinaya, iyana muddo kadib xanuunkaasaa fadhiisiyey. arrinta kale inay kalida hore fadhiisiyeen waxa la yidhaahdo genetic condition, xaalad dhinaca hiddaha kaga imanaysa qofkan. kalida cusub ee loo geliyana way fadhiisinaysaa xaaladaasu genetic condition-ka haddii uu ku jiro, oo xagga hiddaha markaa xanuuno la hidaysta ayaa jira. xanuuno hiddaha hadduu qabay kalida cusub ee loo geliyana xaaladaas way fadhiisanaysaa. xaaladda afraad baa waxay tahay autoimmune disease, in jidhkiisu kalida unugyadeeda difaaca jidhkiisu uu weerarayo oo uu dhaawacayo oo isagu xanuun uu isku yahay qofkani. hadday kalidii hore taasi fadhiisisay oo autoimmune disease uu qabo, kalidan cusubina way fadhiisanaysaa. arrinta shanaad ee ugu dambaysa ayaa waxa ay tahay urinary tract obstruction, waa marinka kaadi mareenka oo xidhan qofkan. ama tumor ha xidho, ama infection ha xidho, oo caabuq ha xidho. haddii wadada kaadidu ka soo baxayso ay dhibaata ka taagantay, 5 shayba kalida cusub ee qofka loo geliyo dhibaatay ku noqdaan. kadibna waa sababta marka dambe qofka haddii kali cusub loo geliyo haddana in yar kadib kalidii ay fadhiisato, qofkiina markaa sidaa uu ku tago. markaa dhakhaatiirtu waxaabay door bidaan xilliyada qaar lacagtay doonto ha ahaato, qarashku doono waxa ku baxee temporary solution-ka inay isticmaalaan oo ay sameeyaan dialysis-ka qofka kaliyihiisa in la maydho oo aan kali cusubba loo gelin. qaabkaasay door bidaan. haddaba kalidaada labadaa dhibaataba way wajahaysaa ha dhowto. waxaa loo baahan yahay intaad caafimaadka qabta kalidaada inaad ilaaliso.
oo xanuunada kaliyaha fadhiisiyana mar kasta aad iska baadho si markaa kalidaada aad u ilaashato. intaasaan ku soo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.